بسم الله الرحمن الرحيم halka kan waa shirkayga jiraayid aha sanadlaha ama lix biloodlaha ama maalinlaha ama wixii doono ha noqdo shirkaygan jiraayid madaxa banaan wallahi waxa maqal jiray musharaxa madaxa banaan iyo tifiyada madaxa banaan yeelkiisa waxa madaxa banaan horta la mid yahay shirkaygan jiraayid waxaan maanta kaga hadlayaa awal wadanka gudihiisaan kaga hadli jiray waan dhaafay maanta halkii caalamkan ka hadlayaa obadi wel caalamka oo dhan baan ka hadlayaa waxa weeye caalamkan la hadlay waxaan leeyahay marka hore tiifiyadan baan ka hadlayaa war walaalayaal tiifiyatiina waxaanu idin ka codsanaynaa tiifiyada war walaal naga soo maydha warka sida jasiiro soo maydha marka hore isagoo tuutuwan bay saabada ugu tuurtaa way soo maydha bas dib soo celitaa isagoo dahab buu soo baxaa isagoo iska giile baan lagu soo daynaysaa war nagaayda soo yar maydha barkadaha la tago oo xurfadaha la tago soo yar maydha oo ilmi waxaanu idin ka codsanaynaa tiifiyada naga soo yar maydha warka kaas waa ka caalamka aanu sii gudbo waxaan ka hadlayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxweyne Mareykanka ta maalintii hore doorashada waxay isku haysateen gabadh oo kala lulateen oo isaysateen gabadh maantana gurigii caddaa waxay isku haysataan Ilhaan Cumar dumar waxaan ahayn miyaan adigu aqoon war soo dhaaf baan ku leenahay oo madaxweynaha tahay wadan dhane rag la hadal rag la war dumar maxaa isku macnahaagi oo idil maxaa dumar ku meegaaray taasuna wata waan ka gudbiyaa aanu soo dego arrimihii caalamka sida BBC-da moo sheega marka hore toddobaadka iyo caalamka ha waayahay caalamka waxaan kaloo leeyahay China kaga hadlayaa maanta Shiinaha badayadan gacankan cadmeed dhaqdhaqaaqa ka wada sida u dulmaaxay waxa laali wuxuu doonaya aanan garanay waxaan leeyahay China annagu waxaanu leeyahay dadkii 60-yadii iyo 70-yadii ku doodayay maxad haajin raaciga ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo annagu ahaadee waa kii ku doodayay 60-kii iyo 70-kii mala China cusbo dambaatihiin kii hore wax weydiiya ragga caynka sabaanu nahay hanagu soo xadgudbina badayada ha ku soo xadgudbina waxba lagu maleeyay waxaanu idin leenahay hadaa dhaqdhaqaaqa ka wadaan badayada joojin weydaan wixii anagu shaqo kuma leeyahay wixii ka dhaca waxaanu idin leenahay China waxaan arki jiray maqli jiray China waxa isleeyahay dadkan waxba arki maayaan war waan arkaynaa moojaan idinka mala indha yar waxba arkayne waanu idin ognahay ka baxa badayada maanu idin leenahay wariya waxa China maagasa China waa sidii xaqad qaad war waa maxay China xaqad u maagta waayo hoosanaga maanta loo la heshiinanayo ma siyaasada la soconayo ad goorma meesha soo fadhiis waa fadhiyo gorahan baa China meenan maalin dhaweyta la heshiino aan siyaasada meesha marayaan bala socon oo yaa la heshiin China la heshiin de China waxa la heshiin Taiwan miyaad maqal Taiwan iyo China maxay soo keenay Taiwan iyo Taiwan oo maxay kala yihiin waa midna waxa weeye jamhuuriyadda dadka China haye midna waxa weeye jamhuuriyadda China ma fahanti maxaa tii mid waa jamhuuriyadda China oo waa taas waa Taiwan ta kalena jamhuuriyadda dadka China weeye oo markaa maxay isku khalday iyo maxaa China waa maxaa dee waa adigu axgaadu iskaga khalad war mala badbaabaan ku jiro war heede anagu Taiwan ila China oo markaa maxaa sida isugu murugsiya kala garanaya markaa waxa loo kala garanaya adigu teebad labada tabadan tabadan waati waxa weeyaan jamhuuriyadda dadka China taasaan anigu maagaya taan ka hadlaya maagaya wata taa badan anaga Taiwan ila weyne tiina la heshiisay waxa weey oniga iyaguna China way isla wada China miya waa isku wada China laakiin ma ka Taiwan sidee way lagu kala garanay way isku murugeen Soomaaliya ma isku murugsantahay cida kala socda ma aha labada isku murugsan wallahi dadku ma kala yaqaan adduunyadu ma kala taqaan waa saas oo kale kowdi waxa lagu kala garan karaayo lagu kala soocayaa midna deemka Taiwan bay la baxaysaa jeebo way ka yara baxaysaa hadda wax lagu waxan maqla China way ka baxaysaa ha ka baxdo China ha ka baxdo Taiwan goonideedii haysu taagto waxaan leenahay anagu ka badan baan maagaynaa dee badayadan soo farageliyay war mid ka kaalay Taiwan tan la garan la sheegayaba waa bila i'tiraaf badii gabigeedu ciidama aqoonsana caalam waa Soomaaliland oo kale kowdi dadkeeduna 20 milyan marka maxaa soo tiloorin jiray laba qaaqawan isma qaado Soomaaliland iyo Taiwan
maxay imanka isku biirinayaan waryahay mahmaadu meeshay qustaysaa la mariya Taiwan ma qaawana way gashan tahay mariyaheedu qaad kuwii ugu dhaqaalaha adduunkay ku jirtaa kuma waliska adduunkay ku jirtaa niman waxba haysan ba qaawan laba qaawan isma qaado mahmaadaas maba qusayso Taiwan iyo Soomaaliland ma qaawana Taiwan ilaahay waxa uu dhib waxa weey adigu horta inaad reede iska wada hawsha iska wada noolanayna da nooga bax shirkayga jira nooga bax Taiwan waxa weeye jamhuuriyadda China ta kalena waxa weeye jamhuuriyadda dadka China wada China war anagu laakiin waa kinoo kala sheegay China ha badan baanu maageynaa badayadan soo farageliyay Taiwan dadaan heshiis kala qoranay weeyo waa dad wanaagsan waa dad haysta soo dhawaa waxaan leenahay marka caalamka waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta toddobaadka iyo caalamka shirkaygan jiray waxa subadadka looga taaglayo ilaa bari hore khadiyaan laga taagay inta ku suba gabigiisuba waxa mar ilaa bari hore wuxuu leeyahay jir jiray halka baa waxaan ku cadeynaya waxba cadeyn maysa wuxuu cadeeyay baan u madoobeynayna halka waxaan ku madoobeynaya oo shirkay ogaaba jir jiray qabanaya shirkaygan jiray wuxuu ku saabsay oo halkan maanta ku madoobeynaya jamhuuriyad weynaha China ayaa waxa la yiri badda Soomaaliland buu soo galay maraakiib iyo waxbuu keenay military annaga waabaan soo dhaweynayna dagaalkiisa waa noo sharaf waa caan baabaan noqonayn haddaan annaga iyo jamhuuriyad weynaha China isqabsano waana hadduu gantaalka ugu weyn ugu soo reeyay qumbula duriya oo aan mid naga hadhaynin annagu diyaar baan u nahay China because caan baabaan noqonaynaa oo dunida la isbaranayna nala dagaalamo China diyaar baan u nahay waxa raacday inta Taiwan waa wanaagsan hortayadu laakiin anu maanta China haan u jeeda oo shirkayga jiraad ku madoobeynaya China noo kaalay nala dagaalan badda caskaalay an orgi fuulaya iyo qabaal mii ka dhiganay annagu waxaanu samayn doonaa annaga samayn doonee nala dagaalan annagu waxaan doonaa si aanu caan u noqono because adduunyada kala baan maqlaysa iyo waxa la caalamku xuurul caalam oo dhan baa warkayga laga dhageysanaya waayo dawladii fiitooda haba nala dagaalamay waanu soo dhaweynaa annagu dagaalka China yaan kaga hadlaya arrimahan way badan yihiin waxa subadadka looga taaglayo ilaa bari hore khadiyaan laga taagay inta ku suba gabigiisuba waxa mar ilaa bari hore wuxuu leeyahay jir jiray halka baa waxaan ku cadeynaya waxba cadeyn maysa wuxuu cadeeyay baan u madoobeynayna halka waxaan ku madoobeynaya oo shirkay ogaaba jir jiray qabanaya shirkaygan jiray wuxuu ku saabsay oo halkan maanta ku madoobeynaya jamhuuriyad weynaha China ayaa waxa la yiri badda Soomaaliland buu soo galay maraakiib iyo waxbuu keenay military annaga waabaan soo dhaweynayna dagaalkiisa waa noo sharaf waa caan baabaan noqonayn haddaan annaga iyo jamhuuriyad weynaha China isqabsano waana hadduu gantaalka ugu weyn ugu soo reeyay qumbula duriya oo aan mid naga hadhaynin annagu diyaar baan u nahay China because caan baabaan noqonaynaa oo dunida la isbaranayna nala dagaalamo China diyaar baan u nahay waxa raacday inta Taiwan waa wanaagsan hortayadu laakiin anu maanta China haan u jeeda oo shirkayga jiraad ku madoobeynaya China noo kaalay nala dagaalan badda caskaalay an orgi fuulaya iyo qabaal mii ka dhiganay annagu waxaanu samayn doonaa annaga samayn doonee nala dagaalan annagu waxaan doonaa si aanu caan u noqono because adduunyada kala baan maqlaysa iyo waxa la caalamku xuurul caalam oo dhan baa warkayga laga dhageysanaya waayo dawladii fiitooda haba nala dagaalamay waanu soo dhaweynaa annagu dagaalka China markaad xeer doonaysiiyo heshiis iyo kala dambayn ama aadood iyo xafiis dacwadi ay ka gasheen dad yow lagu xiiqila qareena dabadii iyo dalkaba doodoodu shaqaynayso aqoontoodu ay durugsan tahay sam legal u doono dantaada ku soo wargeli garsheegaha daacadda